barashada xirfadda waxa lagu tiriyaa meelaha lacagaha ugu badan laga sameeyo sanadahan casriga ah sida lacag loo sameeyo muuqaalka la iyo noqonaysa muuqaalkan waxa xoog ku saari doonaa sida ku baran leed xirfad cusub markii ay baranaysid xirfad cusub waa inay tahay xirfad adiga aad jeceshahay passion aad u heysid in background ahaan ku wanaagsan tahay inaad aragto fursad ama baahi loo qabo barashada xirfad cusub mar walba waa mid adag laga yaabaa inay ka rabto inaad meel fog u aado ama waqti dheer kale u hesho ama aad u baahan tahay in agab cusub aad soo iibsato waxa qasab ah inaad saddexdan sharci u soo martaa barashada sharci koowaad waxa waaye ka soo bilow aasaaska tusaale haddii guri la dhisayo waa inuu ku yaalaa dhul adag leeyahay asaas wanaagsan si uusan u dhicin sidaas la mid ah ayaa loo baahan yahay aas wanaagsan inaad u yeelato xirfadda qiyaas waxa arkaysaa qof baaskiilka si fiican u wadaya waxa is dhihi kartaa anigana waa inaad sidaas oo kale noqdaa waa soo iibsatay baaskiilka waxa iska cad inay marka hore xumaanayso laakiin aamin isku dayga wax aadan hore u bilaabin mar walba way adagtaa taasina waxay noo hogaaminaysaa sharciga labaad ee ah inaad ku celcelisid wixii aad soo baratay qof kasta oo wanaagsan aad aragtid waxa laga yaabaa inuu soo maray practice badan yeesan gadaal ku celinin filashada marka hore aad filanaysid sharciga saddexaad waxa waaye in aadan ka baqin inaad qalad samaysid aniga markaa soo korno ee aan baranayno socodka waxaa qasab ah inaan dhowr jeer dhacno taasina waxay noo horseedaysaa inaan ku barano qaladkeena marka ha ka baqin inaad qalad samaysid muuqaalkan asagoo faahfaahsan waxa soo dhigi doonaa YouTube-ka isku hubi inaad YouTube-ka subscribe saartid soo ku soo gaaraan muuqaalada mustaqbalka hana iloobin muuqaalkan in la like saartid follow na soo dhaadid bye